مسؤولين كترسان دولة goboleedka Hirshabelle ayaa kormeeray howlo biyo xiris ah oo ka socda laanta boolisiidu xaafadda hanti wadaaga ee degmada Jowhar kadib fatahaad uu bilaabay wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeellada Dhexe qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo kormeerka qayb ka ahaa ayaa sheegay in biyuhu ay ka soo hormareen xilligii lagu yaqiinay wabiga in uu fatahaad sameeyo waxaana ay ka warameen halka ay howlaha shaqooyinka ka socdaan iyo halka ay marayaan toddoba baldoos ayaa hadda shaqeynaysa waana laba meelood meesha biyuhu ay ka soo galeen Baarey iyo Moyko dabadeeda xagga Jowhar anka Jowhar ka xigta marka ilaahay baa ma hadda iska leh inta shaqeysana ilaahay baa ajir ka siinaya intii aan shaqeynay dhageystana ilaahay ajir san leeyahay rajadii aan saaki meeshaan joogno haddaan ka fiicanahay saacadda haddaan kula hadlayno waxa shaqeynaa toddoba baldoos ayaa hadda shaqo ku jirto oo si voluntary ku shaqeynayso oo dadkooda in caawiyaan u taagan anaga hadda ayagaan la shaqeynayna qaybtan ayaana hadda nala soo xil saari ilaa toddoba baldoos hadda shaqeey saacadda aan kula hadlaa toddoba shaqeey wada hayaan meelihii aan cabsida ka qabnayna waa ka gudubnay 100% ilaahay qeyrkiisa ayay ku suurta gashay meelihii aan magaalada uga cabsi qabnay in biyaha ay galaan hadda alxamdulillah magaalada qayb biyo ayaa galay laakiin magaalada weyneed ma ahayn wax yar oo xaafado yar ay biyo yar ka soo galeen si hayaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa sheegay inuu jiro shaki ah in biyuhu fureen shakhsiyaad dano gaar ah ka leh barakicinta shacabka kuwaasi oo ka macaasha xilligan oo kale waxaase intaasi uu sii raaciyay in wabiga laba meelood uu fatahaad ka sameyn jiray ayna ogaayeen balse ay ka dib dhaceen taasi oo keentay in xilligii lagu yaqiinay wabiga uu ka soo hormaro xalay abaara 6 saac ilaa haatan u taagan sidii loogu hortagi lahaa fatahaadihii gaadmada ahaa xalay saqdi dhexe magaalada labada dhan ka baxay inkastoo ku talagalkii qiyaastii wabiga xilligii aan filan jirnay fatahaado inay dhacaan aad moodo inay wax si ka yihiin inkastoo labada meel ay ka baxeen fatahaadahaas ay meelo noo calaamadaysan oo qiyaastii inay aad u jilcan yihiin qorshaheedu ahaa ku talagalkina uu dib noogu dhacay feeska labaad ee wax laga qaban lahayd ay tahay haddana waxaan leeyahay maamulka degmada iyo kan gobolku inay dib u eegis ku sameeyaan waxyaabaha fududeeyay in sida dhaqsiyahan ay biyaha isku baxaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan shacabka degmada Jowhar ugu bashaaraynayaa in hawsha meel fiican marayso aan ku rajaynahay ilaa berito in laga gungaaro in fatahaadahaas laga hortago wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa xilligan waxa uu fatahaad ka sameeyay labada dhinac ee waqooyi iyo koonfur haddii ay sii socotana waxa khalkhal ku jira caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ee Jowhar magaaladan ay noqoto mid go'doonsan oo aanay jirin wax ka baxa iyo wax soo gala Umar Guxurbaynta City Jowhar